السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات أدبان إذن سلام يا بليس جنال كاس خليف حسين هداد كو عصب تاي سبسكرايب سار أدبادو ما سنتاي سودو عدالة درو مسدد حدي عدالة مسد دولد كستو دسن وحا آس كيدا وعدالة دا دولد حدي عدالة لغا وايو base dawlad taliso dalka taliso haddii ay cadaalad laga waayo ma jiri karto dawladdaasi ma noqonayso dawlad dhismaysa oo maartay dawlad hor u socon karto dawladdu waxaa dhisi kara afar shay baa dawlad dhista afarta shay kow waa cadaaladda labo waa garsoorka saddex waa ammaanka afar waa ammaanada afartan haddii dawladda laga waayo ma noqon karto dawladdaasi dawlad lagu kalsoonaan karo oo ajaanib iyo dadka dalka u dhashayba dad ay ku kalsoonaan karaan maaha run ahaantii dhibaatooyinkii dhacay mase dhibaatooyinkii intii dawlad Soomaaliyeed ay jirtay dhibaatooyinkii dhacay ma aha dhibaatooyin cusub mase dhibaatooyin wax hadda soo cusboonaaday maaha waa dhibaatooyin hore u jiray oo ay kala dhaxaleen dawlad kasto mase dawlad kasta ay timaado ay ka dhaxshay dawladdii ka horeysay taasi oo maartay aad u malaynayso sida madaxweynaha loo doortay mase golaha baarlamaanka loo doortay oo kale in dhibaatada dadka shacabka lagu hayna in loo doortay aad u moodo shalay ma ahayd daraad dhibaatooyin isxigxigay ayaa waxay ka dhaceen meel dawlad ay ka taliso meel dawlad ay awood ku leedahay meel dawlad ay hay-adaheeda dhammaantooda kuwa surdoon kuwa ammaan dawlad xitaa madaxweynaha uu degan yahay ayaa dad lagu dulmiyey dad lagu dhibaateeyey dad intii la halaagay ilaa hadda aan la duugin qofkii la halaagay la dilay oo xaqdarada lagu dilay ilaa iyo hadda uu ku jiro talaagada halkaasi waxaad ka arkaysaa dawladda mase shayga dawlad la yiraahdo dawlad wuxuu ku noqon karaa dadka shacabka markuu cadaalad u sameynayo ninka dadka dhibaataynayna ummadda ka qabto oo ninkii la dhibaataynayna maartay uu gargaaro markaasa dawlad ay noqon kartaa run ahaantii ilaahay ha u naxariisto gabar 6 caruura aqoona korsanaysay ayaa ninkii qabay oo weliba iyadoo xaamilo tahay oloosha ay ku wado caruur mase naf kale ay uurku ku wado ayaa ninkii qabay gubay ilaahay xaq gubiyey ninkii markuu gubay waxaa la yiri ninkii dalku uu ka baxsaday mase Soomaaliya mase xamar ninkaas uu ka baxsaday run ahaantii bulshada Soomaaliyeed arrintaas aad bay u taabatay boqolkiiba boqol qalbigooda aad bay u taabatay laakiin meesha waxaa ku jirta arrin la yiraahdo laandheere mase qabiil mase qabyaalad ayaa meesha ka jirtay taasi oo ka dhigan ninka waa la qaban karay gacantan waa lagu dhigi karay markuu falkaa geystay haddii horey loogu dhaqaaqi lahaa ninkaas gacanta waa lagu dhigi karay waan la qaban karay antii oo dhan lama samayn 7 maalmood ka bacdi markii gabadhii ninkaasi uu basbeeliyey uu dhibaatada u geystay markii geeriyootay ka bacdi ayaa waxaa la yiri waxaa la doonay mase ninkii baa la raadinaya war nin 7 maalmood ka soo wareegatay arrintiisa oo meeshii uu rabay uu gaaray oo dantii uu lahaa uu oofsaday 7 maalmood ka bacdi xagaa laga keenaya war isweydi war fal mase dhibaato oo qof dambi laga galay qof dumar alla dulmiyey haddana caruur masaakiina maantay la aqoonteeyay banaanka looga tegay
dadkii cadaalad u suubin lahaayeen 7 maalmood ka bacdi ninkii ammaanka magaalada ninkii gacanta ku hayay mase ninkii ka mas'uulka haddii sidaan u hadlaya ka waran asaga cidii fakisay kii gaariga ku qaaday kan meesha uu joogo ku hayay inta waa la soo qabanaa sharciga waa la horgeynaa xataa kaligiis lama soo qabanayo markuu imaanaya gaariga wato gaariga ku baxay xamar gaariga uga tagay kuwa hadda haya oo meesha uu joogo ku hayana waa lagu soo qabanaa insha Allah taala waxaan leeyahay caruurta iyo aababa waxaan leeyahay Abdicasiisna waxaan leeyahay nagu kalsoonaada waa soo qabanaynaa sharcigana la horkeeni doonaa insha Allah taala qof hadalada ninkaanay mase taliyaha booliska gobolka Banaadir waa ninkan hadalada uu ku hadlayo ma aha hadalo qof shacab ah mase dadkii qof anshuur dhiiba ah mase nin muwaadin ah nin mas'uulkiisa qaadi kara sidiisa oo kale uma hadlin wuxuu u hadlay sabana aadantamada isan ku jirin buu u hadlay muxuu yiri waa la soo qaban doonaa xitaa ninkii gaari ku qaaday war magaalada Muqdisho adaa ka tilay adaa ammaankeeda hayay ninka gaari ku qaaday hagoo mariyay ma gaari duulay miya soo baxay war ninka haguu ka baxay alista noo sheeg mase noo caday ninka asku famil baynu nahay asku qabiil ayaynu nahay war ninka meelan ku qarsanay dhaha ninka meelan ku qarsanay dhaha maantay ila shalay isla haddana si ninkii dambiilaha dhibka geystay si loo qariyo ayaa waxa la sameeyay waxa la yiraahdo faara qabiilnimo oo la leeyahay waxa ka dambeeyay qabiil heblaay hadaa tii ninkii keena qabiil qasax dheer hadaa tii ninkii keena war dambiil dadlay ilaahay dambi ka galay ma qabiil leh war nin caruur oo hal waalid la haystay halkii waalidna ninkii dhaafiyay ma qabiil leh war goormaa nin dambi galay goormoo qabiil noqday war goormaa nin dad dhibaatay goormoo qabiil noqday war nin dad baabiciyay goormoo qabiil noqday war xagow qabiil ka yahay war goormoo qabiil noqday ninkaas alist haddii si ninkaas loo qariyo mase ninkaasi si maartay uu banaanka loo soo saarin arrinta waa la bedelay waxa laga dhigay reer xibel hadaa tii ninkii keena war reer xibel hadaa tii ninkii keena reer xibel ka ninka loo saarnayo waayo war dambiile ma qabiil leh war nin qof nool nolosha ku gubay miya qabiil leh war qand idin disheeye goormeed dambiile qabiil noqday war nin qof bani aadama haddina dumar ah kontonley oo xaamile ah ninkii nolosha ku gubay war goormoo qabiil noqday ilaahay duf ha idinku bixiye maantay tan laga dhigay barax bulshada laga dhigay reer xibel hadaa tii ninkii keena war dambiile in la soo qabto id kasta waa inay u sugnaataa id kasta waa inay raadisaa kow ila shalay ila maanta waxa lagu hayaa reer xibel hadaa tii ninkii keena reer xibelkii ninka loo saaray maxay u keeni waayeen war reer xibelkaasi ayagana maartay mustaqbalkooda aayahooda dambe dhibaato u soo gaarin kolayba gabdho way dhaleen dadna way siiyeen si dhibaato u soo gaarin may banaanka soo istaagaan ninkaas anaga ma nihin haddii aanu nahayna meeshii aad ku arataan ku dil ma soo qabanana ma iska dhahaan maxay afku u xirtaan u aamusan yihiin war maxay laba qof mase hal qof oo wiclo ilaahay iyo rasuulkiisa ka furtay oo awalba ku joogay barax bulshada inay ummad isku diraan oo awalba ku joogay oo afkoo oo hadlay oo yiri reer hebel hadaa tiin yiri maxii ninkaas maxaa loogu qarinayaa war laba qof oo wiclo ah oo awalba halaal ku dhalan munaafiqiina hadla ay dhaheen miya lankii lagu qarinaya war ninka maxaa loo qarinayaa kow dhibaatada dhan war dhibaato markay dhacdo waxaa la dhahaa say u dhacday lama dhahayo seedeen ku hadlina ayaa la dhahaa war dad ayaa dadkoodii la dilay dadkii markii la dilay war alist waxaa reey gobolka Banaadir ninkii gacanta ku haystay hadduu doq yahay hadduu ninkan sidaan u hadlayo hadduu yahay waxaa la rabay fakti hor intay guriga gabadha la gubay ay tagaan
dadka qalbigooda u qaboojiyaan war 4 maalmood ayaa qof muumin ahaa la dilay oo jirkiisa laga dhigay basbeel laga dhigay ilaahda talaagada ku jira oo haddana ugu jiro in la keeno dhiiga cabki waa in la keenaa war dhiiga cabki waa la qariyay hagaad laga keenaa ninkii waa ka safaara qabiila laga dhigay isla markii ninkii wixii loo rabay waaba laga dhigay waa la qariyay hagaad ka keenaysiin war hagaad ka keenaysiin ninkaas ma heli kartiin wallahi inaad heli karin fariin baa idin siinaya aniga ninkaasay dhihi maayo qabiil waay dhihi maayo ninkaasi waa munaafiq waa murtad waa shaydaan waa dhiigabicab ya waa nin faraqa nin dhiig ku wato ninkaasi meel kastoo lagu arko ninkaas in xirfaha loo mariyo ninkaas ana qof u saari maayo ninkaas cid u saari maayo laakiin wallaahi o bilaahi o tallaahi reerkaani waxaan leeyahay war ninkaas waa la qariyey ninkaas waa la qariyey weliba waxaa qariyey dadka isku diraya dadkan maanta kule reer hebel haddaadtii ninka keena dadka ku haya ayaa ninkii qariyey siday ku ogaadeen ninka inuu qabiilkaa ka dhashay siday ku ogaadeen war barnaamijkan tolyahow barnaamijkan waa lidin diyaariyey ma ogidiina xandhahaystirnina gabadhaa duugta markaad duugtiin kabacdi haddii xeelad aad waxa ku weyseen xooggiina iyo maskaxdiina iyo nabadoonkiina tabartiina adeegsadayo waxartaan qarbuda war waxartiin dila wallaahi o bilaahi o talaadi saas aan la yeelin war Soomaaliya waa la ogyahay Soomaaliya waa la ogyahay dadaa si loogu kurtuminayay loogu baabi'inayay ilaa hadda ay ciil maartay meel la fadhiyaan waxay qabtaan garan laayihiin oo haddana lagu dilay mar waxa la jareer ayaa tiir mar waxa la yiri eelay baatiin mar waxa la yiri dhulka kooyta ka tiin idinka ma lihidiin dad baa ciilkaasi qabo maanta dadkii aan fiirsan lahayn mase dadkii dhiirnaanta laga fiirsan lahaa oo 4 maalmood gabadhii geeriyootay talaagad ugu jirto ilaa caawa la soo taagan yihiin ay leeyihiin ninkii hala keeno war ninka waa la baxshay hagaad ka keenaysiin ya war hal qof magaalo dawladda oo dhan ay degan tahay hay'adaha ay degan yihiin ninkii ka baxsaday 7 maalmood ka bacdi markii gabadhii geeriyootay intuu kuu soo istaagay kule baaburkii lagu qaaday meeshii uu ka baxay guriga uu galay meeshii ku dhuntay waa la soo qaban doonaa ninka kule oo sidaan kuu soo istaagay afkaan kuu macaaneeyey ma kula tahay inuu waxa ku hayo adiga war caqligiina adeegsada ilaahay ka cabsaday gabadha duuga diinta ma qabto qof muslina saacadan waxa ka badan inuu banaanka yaalo diinta islaamka maba qabtaba gabadhan duuga ilaahay qabrigeed ha u waasiyo 4 maad haddaa samayn weyseen gabadha iska duuga xaalad oo aad ninkii ku keensataan ma weyseen gabadhii duuga labo awood inta adeegsataan ninkii tolkiisa idiisa waa aad taqaan idinkaa gabar siiyay intaad weerartaan mase aad aadaan qof ma ka soo qabsan weyseen gabadhaas duuga 3 haddii aad samayn weyseen antaad nabadooni iyo tolka intaad kicisaan go'aan aad ku qaadataan idinkoo qof dilin gabadha la duugay ma haddaad dhihi weyseen gabadhii duuga gabadha meesha ku haysanana tan afraad oo ugu dambaysa haddii aad yeeli weyseen garaad iyo maskax idin xukum haddaad yeelin weyseen gabadha iska duuga gabadha talaagada ay ku jirta lacagteeda idinkeedan ku socota xisaabta ku darsada kow gabadhaas ilaahageeda maartay janno ugu arsuqay gabadha duuga qabrigeeda u daaya ilaahay qabrigeeda waasax ugu dhigo faraha laga qaado ugu dambeyn su'aalooyin waxaa jiro in la isweydiiyo u baahan laakiin su'aalahaas waan hubaa haddii gobolka banaadir ay ku soo laabtaan inay jawaab loo helaynin kow hadda ka hor gobolka baay waxaa ka dhacday nin ayaa gabadh intuu jarjaray jawaan ku riday muskuul ku caasay gabadhaasi 7 maalmood iyo waxa ka badan la raadinayay markii dambe urkeeda la raacay ala soo saaray ninkii gabadhaas dilay
maalinkii gabadha la soo saaray 4 maalmood ka bacdi ninkii waa la soo qabtay maxkamadda la geeyey gees looma fiirin waa lagu dhajiyey cagteedii la dhigay qoryoole daraad waxa ka dhacday u fiirsiya qoryoole daraad waxa ka dhacday maalinkii gabadhan la gooyey maalinka ku xigtay ninba haaskiisa jarjaray 10 daqiiqo ma soo wareerin waa la soo qabtay u fiirso kismaayo ninba hooyis ku dilay daqiiqo ma soo wareerin ninka waa la soo qabtay gaalkacyo sidaas oo kale dhuus marab sidaas oo kale garow sidaas oo kale war dhibaatooyinka markii gobolada ka dhacaan waa laga daba tagaa isla markaa la soo qabtay gobolka banaadir nijaasta degan waa maxay war gobolka banaadir yaa degan munaafiqiinta gobolka banaadir degan waayo yaa degan dhulkan ma dadka aan la baabay hadii loogu talagalay dadka loo sheego ana dhawaa diyaar garoobina dadka loo sheego war macluumaadii maxaa kugu dhacay dhul aad mas'uul ka tahay oo ciidankaaga joogo oo jagboonti kasta adiga aad joogto haddii gobol loo bahayna waddo kastoo laga bixi lahaana ciidankaaga uu joogo sadaag igu dhihi kartaa maanta ninkii ninkaas fakiyey baabuur saaray guriga ku nastay meeshuu fadhiyo la soo qabaa sidaa igu dhihi kartaa ma dhihi kartid taas ya hadalkaas ma dhihi kartid ba adiga sidaa ku dhaxe adiga laga rabay jagboonti kasta mase waddo kastoo la mari lahaa taliyaha ka mas'uulka ama saxaafad kasto taliyaha ka mas'uulka ina masxilkiisu ku waayo mas asaga lagu ganaaho ninkaas waa la soo qaban lahaa waa la heli lahaa ninkaas su'aasha ugu dambayso oo in la isweydiyo u baahan ninkaas halka intuu ka baxay dhul al-shabaab leedahay ma gelin dhul al-shabaab ka taliso ninkaas ma gelin dhul dawladda Soomaaliyeed ka taliso jooga maxaa loo keen waay ya ha waxa loo keen waay ninka waa laandheera waa habar gadir lukaas soo galay Soomaa war ilaahi ma taqaanin wallaahi billahi wa tallaahi qiyaamihi baa soo furmi doona haddii tan waxa laga qaban ha ka sugin inay dawladii iyo baabka furto ha ka suginina ahay ha ka suginina please ilaahay haddaa taqaanin war qiyaamihi yoo nugu dhicine war gabadha cadaalad siiya horta ciid waaba geeriyootay kolleyba ninka la soo qabtaan la soo qaban bad ciid horta waa geeriyootay ilama haysato laakiin dadka maanta ciidan dadkaasay garab ha loo raadiyo sababtan loo garab ha loo raadiyana boqolaal qof madaxa loogu istaagay maanta waxay ku hadlaysan jirin Axmed Dawlo ya waa la gubay waa la buslay waa la kariyay idka hadashay male waa laga socday ya maanti waa tan dhibaatada dumarka lagu qabo waa maxay war dhibaatada dumarka ku qabtiin mas dhibaatada rag dumarka ku qabaan waa maxay dhibaatadan dumarka lagu hagay ka baxday mada kale shalay golaha shacabka la joogay wuu furnaa warnaagihii ku hay LGBT maartay barnaamijka isku jinsiga laga dooday dadka ku hay gabdhihii carabka dhadheera maxay u hadli waayeen gabar baa la gubay waa la gubaa idinka hadli waayey saaliyeela war waxaa la rabay inaad dhahdeen gabadhi markii dhibkaasi uu dhacay inta banaanka soo istaagtaan aad dhahdeen ninkii gabadha dilay halka la soo istaaji ma aadan dhihin war adinka markii futadina u doodaysiinba buuq baa la aragtiin aad leedihiin dastuurka ku haysiine war nimankii idan jarjaray dadka ka mas'uulka ahaa golaha shacabka ee la fadhiyaan antaad u yeertiin maxaa su'aalo weydii weyseen maxaad u xisaabtami weyseen ya masamada kale waxbaa laga qarnaya maadaama gabadha dhanka dawladda lug ku leedahay ma idan dhanka barnaamijkan gabdhihii intii la dilay oo namana waxba ku weyn loo saaray ma loo geliyay iyagan adar nimankaas waxa ay geystaan daqiiqad kama maqnaa isla marka hore ay ka sheegtaan ilaa barnaamijka inta la soo diyaariyay oo ninka loo diray inuu khaarijiyo loogu talagalay
oo markuu waddanka ka baxayo meesha rabo u aadan ninka haaskiis dilee baa lasoo qabanayaa ilaahay idin cadaab ilaahay idin cadaab ilaahay idin cadaab waa cadaabantiina kolley waxda shiina kolley risiq helmaysiina ilaahay idin cadaab ha waxa kale aan dhaha ma jirto ahay muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay walaalkayga u xiili qof kasto dhiban u xiili qof kasto u dhiban u xiili inama almu'minuuna ikhwa xadiidkaas yuu kaa dhumin insha allah muuqaalkan hadduu ku soo gaaray subscribe isaar aad iyo aad baad u mahadsan tahay soo dhow